shirka golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka furmay xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho taasoo shirka doominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay dhammaan xubnaha golaha mustaqbalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland madaxweyne hore shariif ra-iisul wasaareyaal hore xasan cali kheyre maxamed xuseen roobil cabdi faarax shadoon saacid iyo xubno kale. Shirka ayaa maanta waxa uu markaasi ahaa mid bilow ah islamarkaana waxaa lagu soo bandhigayaa ajandayaasha labada dhinac ay kala wataan. Marka la fiiriyo labada dhinac ayaa waxay yihiin kuwa ajandayaal kala duwan wato. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa villa soomaaliya ayaa wata ajandayaal ay ka kooban yihiin wax ka beddelka dastuurka oo laga hadlo iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka hadda socda oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo in lagu taageero midda ay iyadu markaasi dowladda federaalk soomaaliya garwadeenka ka tahay waqtigan. Dhinaca xubnaha golaha mustaqbalka ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha jubbaland puntland iyo sidoo kale madaxweyne hore shariif sheekh axmed ra-iisul wasaareyaal hore ayaa waxay wataan ajandayaal kale oo ka duwan midka madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasi oo ah in laga hadlo doorashada waqtiga ay dhacayso iyo sidoo kale arrimaha markaasi ku saabsan midnimada iyo amniga. gebi ahaanna waxaa dhinacyadan ay doonayaan in meel la iska dhigo wax ka beddelka dastuurka iyo doorashada halka dhinac ay ku sheegeen ee waqtigan villa soomaaliya ay garwadeenka ka tahay. Dhinacyada ayaa kulankoodii maanta bilowday waxaa markaasi uu ahaa mid jawi degan ku bilowday iyadoo aysan jirin wax markaasi warmurtiyada oo weli dhinacyada ay soo saareen walow la filayo in markaasi kulankan marka uu si guud shirka usoo gabagabooba ay soo saaraan dhinacyada waxyaabihii ay ku heshiiyaan. Baraha bulshada ee villa soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland iyo xubnaha kale ee ka qayb galay ay sida gaarka u leeyihiin ayaa waxaa lagu soo markaasi bandhigay keliya in maanta villa soomaaliya uu shir ka furmay kaasoo u dhexeeya golaha mustaqbalka iyo sidoo kale golaha markaasi madaxda qaranka ugu horeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Waxay sheegeen in shirka uu jawi degan ku bilowday islamarkaana ay rajaynayaan inuu kusoo dhammaado mid markaasi heshiis rasmi ah laga gaaray dhammaan waxyaabaa laisku hayo. Madaxweynayaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland oo muddo ku dhow 8 maalmood ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn maanta waxa ay gudaha u galeen xarunta villa soomaaliya. Maalmihii lasoo dhaafay la sheegayay inay ka cagajidayaan in villa soomaaliya ay shir kaga qayb galaan madaxweynayaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland, laakiin ugu dambeyn waxaa muuqata in lagu qanciyey dhinacyada inay villa soomaaliya tagaan shirkana halkaasi uu ka qabsoomo. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana u muuqda in go-aankiisii ahaa in shirka lagu qabto villa soomaaliya uu hirgeliyey islamarkaana uu ka dhabeeyey kadib maalmo uu go-aankaasi ku dheganaa. Shirka oo villa soomaaliya ka furmay ayay dad badan ku tilmaameen in uu yahay mid uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga adkaaday dhinacyada kale ee golaha mustaqbalka ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha puntland iyo sidoo kale jubbaland oo iyagu si weyn u diidanaa tegitaanka shirka villa soomaaliya ka qabsoomaya. wax walba oo ku saabsan shirkan waxaa laga dul sugayaa maalmaha soo aadan iyo marka uu shirka soo gabagaboobo, laakiin khubaro dhinaca markaasi siyaasadda falanqeeya ee soomaaliya waxay sheegeen in shirkan uu muuqdo mid markaasi dhinacyada aysan si rasmi ah heshiis ugu gaari doonin maadaama ay wataan ajandayaal siyaasadeed oo aad u kala fogo mid walba uu doonayo inuu meel mariyo ajandihiisa iyo sidoo kale qodobada xasaasiga ah ee uu wato. kala fogaanshiyaha ajandayaasha labada dhinac ayaa suuragal ka dhigi kara in gebi ahaanba shirka uu kusoo dhammaado fashil, laakiin waxaa suuragal ah maadaama cadaadis beesha caalamka uu jiro in la gaaro heshiis rasmi ah oo dhinacyadu ay kala saxiixdaan waqtiga doorashada la qabanayana lagu heshiiyo.